degmada Baardheere ee gobolka Gado ee Soomaaliya waxaa laga soo sheegay in caawa ka jirto xiisad colaadeed oo u dhaxaysa laba ciidan oo kala taabacsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. waxay si gaar ah labada ciidan u kala taabacsan yihiin gudoomiye cusub oo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Luga Dheere oo u magacaabay degmada Baardheere iyo sidoo kale gudoomiyihii degmadaas oo Muqdisho ku sugan ciidan taabacsan. warar ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaana ay dhaqdhaqaaq ka wadaan degmada Baardheere ee gobolka Gado oo ay fariisan ku leeyihiin duleedkeeda iyo gudaha magaaladaba. gudoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gado Cabdullaahi Nuur Xasan oo ay maamulka Jubbaland sheegeen inay xilkii ka qaadeen kadib markii isaga iyo xubno kale oo maamulka gobolka ka tirsan in magaalada Muqdisho ay ugu yeertay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladda Baardheere ay degan tahay. wuxuu kale uu sheegay in ciidamada ammaanka ay ku raajoogaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka gobolka Gado Alqaadi oo uu ku eedeeyay in qalalaaso gobolka uu ka kiciyay. Baardheere waxay sadoo ka jira ma jiraan. xaaladeedu way degan tahay. aniga hadda Muqdisho aan ku suganahay oo howlo shaqo u jooga. waxaa ku sugan maamulkii degmada shaqaynayay oo active ahaa. gudoomiye ku-xigeenkii iyo xubnihii kale ka shaqaynayay wax dhibaato oo ka jirana ma jiraan. adiga oo ay Jubbaland sheegeen in xilku ka qaadeen iyo gudoomiye cusub oo la magacaabay ciidamo labadiina kala taabacsan in magaaladii joogaan la sheego xoogaa cabsi ay jirto. waxaas ma jiraan wax Jubbaland xil ay ka qaadeen ma jiraan. wax xil ay ka qaadi kartana ma jiraan. Jubbaland wadagta waxaa ka dhacday doorasho la isku raacay ma ahayn. dawladda federaalka Soomaaliya way qaadacday wixii ka soo baxay. beesha caalamkana way qaadacday. sida awgeed marka waxaa dowr waxa socdaa in lagu celiyo doorasho xalaal ah. inta hadii doorashada ka dhacaysana oo Jubbaland ay madax la doortay yeelanaysana maamuladii jiray baa sii shaqaynayaan maamuladii jiraan annagana shaqaynayn. marka hadda ciidanka yimid maxaa weey magaalada marka maxaa cabsida gelid dadka magaalada oo ka jira beledka ma jiraan. magaalada way saxanta nabadgelyadeeda wax dhibaato ma jiraan. ciidamada dawladda Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliyeed baa joogo. laamiga amniga sidoo u shaqaynayaan waa wareysan kartaan taliyaha booliska laamaha kala duwan sidoo kale maamulkii degmada oo shaqaynaya gudoomiye ku-xigeenka horkacayo xafiishadoodii howlahoodii si habsami socod loo wataan. in gudoomiyaha cusub ay soo magacaabeen Jubbaland sidoo doonaba ku yimaade magaalada uu joogo oo doonay inuu xafiiskii tago dhammiya. ninka awal buu joogay maamulkuna kamid ahaa gobolka xogayaha maaliyadda gobolka uu ahaa. degmaduna ku sugan yahay uu jooga waa sax laakiin hadda oo dhaqdhaqaaq uu ka sameeyay ama uu ka sameyn karo mid ma jiraan. Alqaadi isaga inay tageen la sheegay xaruntii degmada oo meeshaas ay dawladda ka bilaabatay. Alqaadi meeshuu ka soo hadlay gurigiisa waa isaga la raadinaya mana tagi kara degmo mana tagin. ciidamada Itoobiya inay saameyn ku leeyihiin xiisada jirtaahi ayay wararku qaar sheegayaan. marka xagee ciidanka Itoobiya damacsan wax ka sameeyaan. wax saameyn oo ciidamada Itoobiya iyo ciidamada Soomaaliyeed mid ay ku leeyihiin ma jiraan. magaaladana amnigeedii xaaladeeda buu sugan yahay. ciidamada Soomaaliyeed xoogga dalka Soomaaliyeed baa joogo. waxa dhibaato cid ka sameyn kartana ma jirto. qaadimadeena barsaab ku-xigeenka labaad ee gobolka ahaa hadduu hadii asaga ka tanaasulo oo howlo kale uu la yimaadana asaga u taala laakiin wax kale ku ognaay ma jiraan iyo wax uu ka bedeli karo iyo system uu la imaan karo asaga oo jeebkiisu kala imaan karo ma jiro. waxyaabo la sheegayna oo Luga Dheere magacaabay leerin wax sharci darro weey. Luga Dheere asaga magacawnayn waa la diiday doorashada beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya way diiday. wasaaradda arrimaha gudaha cadaysay annagana hadda maamulada horaan ku sii shaqaynayna intii laga helayo Jubbaland cusub oo la yagleer. marka waxa tiri Alqaadi isaga la raadinaya oo baxsada yaa raadinaya. Alqaadi lama amniga loo diray inay soo qabtaan dhibaatada uu ka dhex wado. yaa u diray lama amniga. annaga u dirnay. Alqaadi adigu ka sareeyay amar ma bixin karto lagu soo qabtay yaa bixi. annaga bixinay walaal waa la soo qabanaya. idinka yaa way marka annaga marka leedahay. inta qaad adiga ma adiga mise wax ka sareeyo. mas'uuliyadda qaadimaday waa la soo qabanaya. shaqooyinku ka wada deegaan. yaa bixiya marka lagu soo qabanayo. dawladda Soomaaliya way marka yaa la amray ma military ma Ethiopia iyo amarka yaa qaad. military la amray inay soo qabtaan. ciidanka Ethiopia sheeganayaan dadku inay magaalada soo galeen oo ay doonayeen mas'uuliyiin ay xirxiraan. adigana waxa leedahay hadda waa la amray. ma wax Ethiopia
soo gashay beedka ma jiraan. Ethiopia xilliyada ay dhaansanaysa biyaha bisi soo gashaa magaalada. idinka xawar maxaad ka qabanaysaan adiga iyo xubno kale maamulka gobolka ka tirsan iyo kuwa degmooyinka Muqdisho joogtaan dhowr cisho ujeedadiina maxaa weey? annaga dawladda Soomaaliya noo yartay ayaan shirar la leen. maxay ku salaysan shirarka? shirarka waxay ku salaysan yihiin amniga deegaanka gobolka Gado iyo la dagaalanka argagixisada. arrimaha Jubbaland ma ka wada hadasheen dawladda dhexe? arrimaha Jubbaland dawladda dhexe yaallo waxna noo yaallo. idinka ma idinka la hadlay? maya waxaad ahaydeen dad la shaqeeya Axmed Madoobe maamulkiisa oo ku xiran hadda xamar joogtaan dawladdii dhexaad heshiis la tiin oo waagii hore aanan ugu dambeyseen Jubbaland marka waxa weeye hadda wixii ka dambeeyay Gado waxa laga maamulaya xamar oo Kismaayo laga maamuli maayo. Axmed Madoobe walaal wuxuu ahaa madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland muddo 2 tayro isku xigta ayaa loo doortay oo soo maray taymka saddexaad sidii loogu talagalay systemka haddii uu dhici waayay dawladda Soomaaliya way diiday beesha caalamkana way diiday annagana shuruuc iyo nidaam baa adduunka lagu shaqeeyaa nin asaga wuxuu rabay inuu sameeyo oo iska sheegto oo lagu shaqeeyana taa sharci maahan waxaan kula shaqeynaynaa annaga maamulada ku ahayna sharci bay ahayd haddii asaga sharciga diidayna sharci darro laguma shaqeynayo intii sharci ahaan la shaqeynayna dawladda dhaxana ka amar qaadanayna wixii hadda ka dambeeyay intii dawladda cusub laga dhisay. kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baardheere ee maamulka Jubbaland oo ku sugan magaalada Muqdisho wuxuu ka mid yahay mas'uuliyiin heer degmo iyo heer gobol oo ay dawladda federaalka Soomaaliya u yeertay kuwaas oo magaalada Muqdisho u yimid inay kulan la qaataan mas'uuliyiinta dawladda laakiin intii ay xamar ku sugnaayeen waxa xilkii ka qaaday maamulka Jubbaland sida ay sheegeen inkastoo aanay ogolaanin oo ay diidan yihiin. gobolka Gado oo xiisada siyaasadeed ka dhamaan la waxaa dhibaatada xasilooni darrada siyaasadeed u heliya dhibaatooyin daran oo ay dadka deegaanka wajahayaan oo ay ugu daran tahay midda amni darrada iyo duqeynta aan waqtiga iyo ujeedkuba lahayn oo la sheegay ciidamada midowga Afrika AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya ay ka geysanayaan waxa uu sii weheliya dhibaatooyinka ay haweenka iyo carruurta ay wajahayaan ee daryeel la'aanta ah fatahaadaha webiyada iyo sidoo kale duruufaha kale gobolka ka jira. degmada Boordhoobo ee gobolka Gado ee Soomaaliya haween ayaa ugu geeriyooday daryeel la'aan xilli ay ku jireen xaaladda foosha in badan oo kamid oo hadda uur lahayn waxa la sheegayaa in ay dhibaatooyin daran ay wajahayaan. waxa sidoo kale degmadaas ay ka dilaacay oo ka jira cudurka malaariyada oo in ka badan 50% la sheegayo in dadka degmada ku nooli ay wajahayaan. xarumo caafimaad oo tayo oo si gaar ah loo leeyahay kuwa public ah oo ay dawladdu leedahay kama jiraan. meesha ugu dhawi waa Garbahaare oo 50 kiiloomitir u jirta al-shabaab ayaana ka xigsada oo go'doomiye oo la sheegay in ay diideen in la galo waxaana ugu dhow oo ay dabo iyo sidoo kale daryeel u raadsan karaan degmooyinka kale ee gobolka Gado oo tan ugu soo sokaysahay ay u jirto 90 kiiloomitir sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta gobolka. Dr. Axmed Barre Maxamed waa madaxa caafimaadka ee degmada Boordhoobo ee gobolka Gado ayaa iga warramay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee degmadaasi. dadkaan aniga waxaan joogaa Boordhoobo muddo 7 bilood ah. waa gartay waxaan ka soo tagay Muqdisho Boordhoobona waxay ugu dambeysay 12 sano ka hor markaan imaanayo. waa gartay dhibaato badan iyo khayr badan oo ka imaanaysay baan ugu nimid aniga iyo wiil in kale oo mutadawiciin oo bal dadku ay sheegayaan aan ka warbixinaa. waa gartay waaga horena 12 sano ka 2007 ilaa 8 ana injaaska isbitaalka ku yaalo Turkiga ay gacanta ku haysay. waa gartay hadda intii ay dawladdu meeshaan qabsatay waa 6 sano 6 sano hadda 7 bilood baan joogaa. hay oo hay'addu ay ka maqan tahay 5 sano iyo 7 bilood. waa gartay isbitaalka markuu uu xirnaa markii meeshaan dawladdu qabsatay horta dhibaato guud baa ku dhacday shabaabka waxay xireen dariiq kasta. waa gartay dariiq kasta oo la mar laa waa xireen waa la xoray mooto kama bixi jirin kiish haddii la baa degmooyinka u dhawaaday dhaaray qasax dheer oo furo oo gobolka bay ka tirsan kareetada looga soo qaado dameerka ah oo looga soo qaado kiishashka sokorta dhexday ku gubayeen shabaabka. hay mootona ma soo geli jirin. waa gartay hadda intaan joogay mootooyinka iyo waa meelaha way tagtagaan oo kareetooyinka iyo fasaxan yihiin. waa gartay
dadkii marka waagaas way isku yartashteen waxooda ganacsadaha wii carada joogay waa wixii ari haystay airport bay magaalada dhexda ka dhigteen airportka kale maadaama uu jiro 10 kilomitir oo la gaari karin waa gartay meesha magaalada dhexdeeda oo Amazon tu degan tahay way ka dhigteen airport deegaanka ku degto marka waxa gudagal marka dhibaatada ka jirta degmada maxaa weey dhibaatada xagga caafimaad oo ka jirto dhinaca caafimaadka isbitaal male fatahaad baa ka dhacday oo dhulkii kulligiis waxa weey biya jifa chronic malaria oo epidemic waxa la yiraahdaa dilaa malaria qof kasta 90% dadku waa BS positive waa gartay oo malaria 90% dadku malaria qabaan way warka malaria waa naagti oo isha pregnancy-ga meel laga caawiyo haweenka uurka leh feera ay ka qaadato oo laga nafaqeeyo kuma yaalaan isbitaal haddii muumulsooyin fiican oo qualified ah ama dhaqaatiir ma joogaan TBA joogo waa gartay ayaga marka intay ku filan yihiin TBA way ku filan tahay wax ka qaban kartaa wixii ka ziyaado ama dhiigbaxa ama complicated delivery oo unug dalban iyo wax la mid ah waa in meel loo qaado waa gartay hadda meel loo qaadin way dhimanaysaa hay bisha hadda soo dhaafnay ma maleynaya mawlidkii habeenkii mawlidkii waa halkan waxaa ku dhimatay taliyaha amniga oo degmadan xaaskiisa maxay u dhimatay dhiigbax bleeding oo waxay u dhimatay isha way umur raacda waa gartay oo dhiigbax meeshaan black grouping iyo dhiig ku shubiyo lagama helayo marka buurdhoobe ma waxaad leedahay xarumo caafimaad kumaba yaalaan mise waxa weeye hataa isbitaal bareefad oo dhaqaatiir joogto kuma yaalo miyo isbitaal oo dhan ku oolin mise taya isbitaal leh oo dadka baahidooda xamili karaan ku oolin no isbitaal oo dhan ma ku yaalo isbitaal oo dhan kuma yaalo bareefad ha noqdo public ha noqdo meesha ugu dhow qofkii buurdhoobe jooga ee xanuunsada oo isbitaal ka heli karo xagee wey waa luuq waaye luuq mise kilomitir u jirtaa luuq buurdhoobe 90 kilomitir waaye oo aan wado fiican lahayn oo raf ah buurdhoobe waxaan qiyaasayaa inay u dhowdahay degmada baardheer degmada Garbaharey oo 45 kilomitir Garbaharey u dhowdahay muddo badan way ka hadleen Garbaharey hadda ogolaadeen nimanka shabaabka laakiin waa wareeg laftirkeeda waxaa la tagayaa meel markaa daliyado luuq u dhow kadib baa lagu leexanayaa at least waa 60 kilomitir la soconaya hadda laftirkeeda waa 60 kilomitir wadadii hore oo u furnayd buurdhoobe iyo Garbaharey geeda ka soo baxay hadda baawrba ma mari karo waa dhir bay noqotay duur ah qofkii xanuunsan ee buurdhoobe laga qaado ee Garbaharey la geenayo oo 45 kilomitir qiyaastii u jirta al-shabaab ma ogola miya qof xanuunsan in la qaado maxaa al-shabaab u leedin wadada oo xiran hore ma ogoleen sanadkan hadda way ogolaadeen laakiin waa in ayaga xaruntooda oo luuq iyo halkan kala barkeeda oo in la maro way waa gartay wadadii Garbaharey ku macnaha si meeshan loo qabtay way xiranta totally si inta loo qabtay ma sidii Garbaharey loo qabtay Garbaharey waa la qabtay April 2011 kila la qabtay waa gartay laga soo bilaabo maalinkaasi maanta wadada Garbaharey lama marin buur u dhacayso hay buur waa xukunta list waa xukunta markay u yartahay konton iyo 9 ama 60 tuula hoos imaado hadda meesha aan fadhiyo waxaa la keenay gabar oo sidoo kale tadig baxayso oo delivery communicated oo malaria qabto waxaa laga keenay gedinaas bay oo tuulo ku taalo uu fiilayraado hadda buuruba la keenay oo shaqada ka soo fariistay hay wixii aan qaban karno laba meeshaan hataa ganacsatadii wax ka samaysan lahayd markii wadooyinka ka xirantay bay isaga tageen waa gartay lacagtoodii meel ganacsi leh bay leedahay ama Muqdisho ha noqoto Kenya ha noqoto ama Mandheeri ha noqoto marka buurdhoobe al-shabaab u go'doonsanta dawa isbitaal ka fadhiyo dispensary hatta farmashiyaal oo fiican oo daawooyin laga helayo la qabo kuma yaalo hay waana meel webiga ku taalo oo go'doona Jubbaland aad hoos tagtaan ma idinka warqabtaa dawladda dhexe baarlamaankii iyo dadkii gobolka matalayay xog ma ka hayaan dhibaatada halkan waxaa noogu yimid anaga ka degma ahaan kulli dawladii hore oo isheeg hore oo kacaankii buundadan bay ka dhiseen meesha waxba qabad kale kama jirin dawladii ku meel gaarada laga soo bilaabo ilaa bidda hadda oo farmaajo joogo iyo khayre ay mas'uul ka yihiin wax waftiga ka yimid waxaa ka jira waftiga fatahaadaha oo walaha wasiirada senatarada xildhibaanada ku dhamaystirnaayeen waa garta way tageen isbitaalka sabood bay ka gudbiyeen
markii muqdisho ku noqdeenna way la qabsadeen golayaasha ay ka tirsanaayeen ama heer wasiir ahaadaan ama baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose ahaadaan. wasiirka caafimaadka shalay waxay sheegtay in magaalada aanay dhibaato ka jirin oo ay baarlamaanka ka hor sheegtay adiguna hadda waxaa sheegaysaa in meel adag horta wasiirka caafimaadka gabadhu hadda ani wax ma ka sheegayo laakiin waa unresponsibility waan sababaynayaa waxay sheegtay waan dhegaysanaya warkeeda inay ku dhinteen last 6 year 77 qof baa la sheegay tir waxba kala jiraan weeye qof turukeer u shaqeeya ayaa ii sheegay bay tiri inay turukeer meesha hayso. turukeer waa hay'ad airline xafiiskeeda Dublin buu ku yaalaa waa ajnabi waaye oo dad ersha ayada Soomaaliya wasiir caafimaad u tahay wasaaraddeeda qof ka socday soo diri kartaa waxa meesha ka jiro xildhibaanadu ay sheegayaan sanataradu sheegayaan guddiga fatahaadda meesha ay ka warbixinayaan xildhibaanadii kale gabadha oo ayada la mid tahay ay ka warbixisay baarlamaanka hortiisa in la soo xaqiijiyo inay u soo dirtay agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka Abdullahi Xashi Wajira saamin gobolkan waliba u dhashay buu ahaa ka shaqeyn jiray yaqaan lama ama agaasimo waxay noqoto xubin wasaaradda inay tiraado meesha tag waxa ka jira soo ogoobay mas'uuliyadeedu ahay. marka waxa iga warantaa hadda waa ila hadlayso caaw buurdhowema waxaa jira dad xanuunsan oo aan waxba loo qaban karin oo u baahan meel ka baxsan magaalada in la geeyo. naaw bay joogaan daraato shalay ma daraad flight-ka inta yimid gabar ayaan soo saarnay isbitaalka Digfaar baa la geeyey 6 kiilo oo biyo baa laga miiray iyadoo bleeding inta ku samaynaysa way heli kartaa hadda raadisan gabadha buurdhowga laga keenay daraad oo ahadi hay shalay taliyaha booliska degmada gabadhiisa oo communicated delivery with bleeding leh HB-geedu laba u marayo waxaan u diray Garbaharay oo intaan refer ka sii oo ka refer garay waa gart oo shabaab la sii mariyay adii 6 kilometer ay socdeen waa gart soo daad in ay tiraado qof ajnabi oo shaqeeyo oo Irish ayadoo mas'uulka wasiirada dalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka inay tiraado hay'adda ajnabi ay iga warbixisay degmada Soomaaliya ku taala dadkeeda waxa haysto oo waan joogay tiri waa unresponsibility darra ka muuqato madaxweynaha iyo waxay dusha ka fuulaysaa ra'iisul wasaaraha ayaga wasiirada yihiin nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri kullukum raahu wa kullukum mas'uul an ra'iyati qof kasta waxa la raaciyay qof kasta waxa la raaciyay mas'uulka ayaga dalkan u dhaartay loo doortay joogo mas'uulka anaga hadda buurdhowgo naga daran halkan from Alwaq waa 220 kilometer baadheere iyo Alwaq iyo Amagirile waa lamid adliista 400-500 kilometer isku weer dadka joogo oo diyaaradaha Kenya ay duqeynayaan dadku ku dhimanayo roobka ay ka dhaceen madaxa lacagdo kale ay ku taalo oo gurigeeda ay biyo fadhiyaan baa laga warqabin. waa maasanta waa ku mahadcelina waqtiga Dr. Axmed shukran waxaan rajaynayaa fariin Dr. Axmed Barre Maxamed oo madaxa caafimaadka degmada Buurdhow ee gobolka Gado oo ka hadlayay haween daryeel la'aan ugu geeriyooday degmadaasi kuwa xaaladda foosha ku jiray qaar kale oo hadda uur lahayn ay wajahayaan dhibaatooyin daran. wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo shalay ka hor hadlaysay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka waxay sheegtay in degmada Buurdhow oo ay hadda dhibaatada laga sheegayo aysan ka jirin wax dhibaato ah oo ay dadka ku nool haystaan dawooyin xarumo caafimaad oo tayo leh fatahaadihii gobolka ka jireen aanay waxba dhibaato iyo daadadkii gobolka ka daayabaysan waxba dhibaato u geysan dadka ku nool degmadaas. laakiin wararka madax bannaan ee ahnaanle waxay sheegayaan in isbitaallo iyo xarumo caafimaad oo dadka baahiyahooda wax ka gala aanay ku oolin.